munaasibad kooban ee jaamacadda Alfa u qabatay ardayda sanadkani ka baxaya jaamacaddaasi ee diyaarinaya shahaadada heerka labaad ee masterta ayaa waxaa munaasibad bilan ugu qabatay magaalada Hargeysa waxaana kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda xubno ka socday jaamacadaha dalka Malaysia ardayda jaamacaddaasi iyo marti sharafaad u tiro badan waxaana ugu horeyn munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maal iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadda nasiib wanaag waxa maanta oo ilaa 2 sanadood laga joogo inaynu minad dalkii maanta halkan u fadhino in arday tiradoodu dhan tahay 50 arday ay ka qalin jabiyaan oo ku qalin jabiya master degree maanta oo kala 40 arday oo ku qalin jabiyay ama takhasuskoodu yahay MBA oo business administration ama markaynu Soomaaliya u bedelo maamulka ganacsiga iyo 10 arday oo healthcare management oo maamulka iyo maareynta caafimaadka marka tirada guud la isku geeyo madaxweyne waxa weeye waa 50 arday maanta laga bilaabana in shahaadadoodu ay tahay mid xalaal ah ayna ka mid noqonayaan aqoonyahanada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa shahaadooyinka digriga labaad ama masterka sita habaliyo tii burcaw ka qayb galay tii Hargeysa oo ka qayb galay maantana alxamdulillah waxaan ka qayb galayaa tii masterta Hargeysa marka taa waa wax lagu faano way ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan inta qalin jabisay iyo waalidiintoodaba inay noqdaan kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca mar labaad waxaan leeyahay hambaliyo waxayna sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada boos mire iyo xubin sare oo ka socotay jaamacadda dalka Malaysia. Congratulations everyone and I hope waan idin hambalyeynaya dhamaantiin waxaan rajaynayaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada kaleba ay dhiirigeliyaan jaamacadda Alfa si ardaydeedu ay u helaan waxbarasho tayo leh oo heer caalami ah in international level waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradan iyo waayeelka soo dadaalay ee dhamaystay masterkoodii waxaan marlabaad mahadnaqayaa gabadhii Najma ee dadaashay ee iyadoo dhaawacan wadatay tacliinteeda dhiirigelin ugu noqonaysa dadkoo dhan waxa weeyaan cilmigu waa ka in sida cilmiga loogu dagaalamo oo loogu dadaalo waa waajib waxa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan u mahadnaqaynaa jaamacadda u diyaarisay saaxadani una keentay in jaamacadaha wayaaraga ahaa muddo dheer soo jiray in halkan ay u keento maartay ku soo xiriiriso tacliintoodii iyo cilmigoodii kororkoodii halkan keento aad baan ugu hambaleynayaa jaamacadda Alfa waxaan hambaleynayaa runtii waalidiintiina iyo macallimiintiina dhammaantood waxa leeyahay hawl adag baa soo gudateen waxaana maanta hambaliyada gaar u siilay idinka intiina qalin jabisayna waxa leenahay hambalyo ilaahay idin guuleeyo nolosha ilaahay cimrigiina ha dheereeyo allah idinka dhigo kuwii dalkooga iyo dadkooga iyo diintoodaba ku anfaca cilmiga ay barteen dufcadani ayaa noqonaysa tii labaad ee ka qalin jabisa shahaadada heerka labaad ee masterka ee jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa xamse cilmi telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa